Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan daawadayaal ku soo dhawaada qubanaha xaqiiqada wararka caalamka Soomaaliya. Qaybtan waa degdeg waxaan idinkugula wadaagi doonaa xaqiijinta geerida hogaamiyaha Ayatollah Ali Khamenei Iran iyo waliba sidoo kale waqtigan shaacintiisa telefishinka dowladda Iran sida rasmiga ah markaasi ugu dhawaaqday in duqeynta Israa'iil ay ku soo qaaday Iran lagu dilay hogaamiyihii ugu sareeyay dalkaasi. waxaa sidoo kale Iran markaasi ay ku dhawaaqday 40 maalmood oo baroordiiq qaran ahi iyo waliba 7 maalmood oo xaalad degdeg ah in la galayo guud ahaan Iran kadib markii si rasmi ah loogu dhawaaqay geerida hogaamiyaha Iran Ayatollah Ali. Talaabooyinka adag ee waqtigan ay wajahaydo ayaa u muuqata in saameyn xoogan ay ku yeelan karto dhibaatooyinka markan ay Israa'iil ay si weyn u wajahdo. Wakaaladda wararka Reuters ayaana markaasi ku warantay in ka hor weerarka ay Mareykanku iyo waliba sidoo kale Israa'iil ay ku qaadeen gudaha Iran in hay'adaha sirdoonka Mareykanka ee CIA ay markaasi la wadaagtay Trump isku day kasta oo markaasi lagu dili karo hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. qaybtaas ayaa rabaa in halka idinku kula wadaago saaxiibada kan soo dhaadano imaamada channelka subscribe noo saar like saaxiibada hore noo la joogo muuqaalka meel dheer noo gaarsanaysa inoo like garee mahadsanidin soo dhawaada. sida telefishinka dowladda Iran uu baahiyay isagoo si rasmi ah hadda ugu dhawaaqay in la dilay hogaamiyihii sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei halka wakaaladaha wararka kale ee Iran iyo waliba soo kale Fars iyaguna si rasmi ah ay u xaqiijiyeen geerida Ali Khamenei saacado kadib markii Trump iyo waliba Netanyahu ay sheegeen duqeymihii Tehran ee markaasi ka dhacay in lagu dilay Ali Khamenei hogaamiyaha iyo waliba hogaamiye kale oo la xusay oo walibana loo badinayay inuu yahay madaxweynihii isaga ka horeeyay. warbaahinada oo dhan ayaa markaan si weyn u daabacaya dagaalka afargeesoodka noqday oo walibana Israa'iil filashada aan laga qabin in mar qura ay weerarkan iyadu qayb ay ka noqon karto. Trump ayaa si jees ah markaasi uga hadlay xilli isaga oo qoraal dheer uu soo saaray ku tilmaamay in dilka hogaamiyaha uu yahay mid si weyn ay nabad ugu dareemi doonto bariga dhexe. waxay in muddo ah markaasi Ayatollah Ali Khamenei oo ay si weyn uga baqeen markan dunida ay dhaafiyeen walibana waxa u muuqata in talaabada ay qaadeen ay tahay in markaasi gebi ahaanba xaaladda bariga dhexe Mareykanka iyo waliba Israa'iil ay gacanta inay ku hayaan ay qorsheeyeen. Iran waxay markan ay ku dhawaaqday 40 maalmood oo baroordiiq qaran ah iyo waliba in markaasi 7 maalmood xaalad degdeg ah la gelinayo guud ahaan Iran kadib markii si rasmi ah loogu dhawaaqay geerida hogaamiye sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei oo markaasi lagu dilay duqeyn ay fuliyeen Mareykanka iyo waliba Israa'iil. waxaa inta badan wakaaladaha wararka ee Iran iyo waliba sidoo kale Fars ay sheegtay in hogaamiye sare ee Iran markaasi ay dilkiisu u qorsheysanaa Mareykankana aan si ka gabasho lahayn mar walba u sheegi jiray in ay qaarajin doonaan iyadoo Mareykanka lagu wado inuu markaasi hogaamiyaal kale oo qayb ka yihiin dalalka Carbeed saan oo kale uu qorsheynayo inuu u beegsado. mana jirto ilaa hadda wali tallaabo kale la qaaday laakiin markan dalka Iran waxa uu taala baroordiiq iyo waliba sidoo kale maalmo xaalada degdeg ah la gali doono. haddaba horeysaan idinkugu baahinay Iran diyaar ay u ahayd xitaa haddii sargaal ay ugu dhinto cid markaasi ka bedeli lahayd booska ama shaqada. waxaana muuqata waqtigan in gebi ahaanba ay si weyn horaanba ugu shaqeeyeen taasi oo haddana lagu tilmaamayaba in ciddii bedeli lahayd xitaa u diyaarsan tahay. marka laga soo laabto baroordiiqa waxaa bilaaban doona xaaladii ugu cusleed oo ay Iran ay ku qaadi doonto Israa'iil markan waxaa haysta wax yar ma aha iyada oo noqday marankii ugu horeeyay ee loo soo maray Iran taasi oo saameynteeda mar kale laga dareemi doono xaaladda bariga dhexe. waxay kale ka soo kordha qownaashana kale ku qaada ligi doona saaxiibal imaamada nagu tuura subscribe noo saar like saaxiibada noo joogo muuqaalka meel ay noo gaarsanaysaa haynaga akrinina maasanidin.